بسم الله الرحمن الرحيم كسود هذا معدك كابي أونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحكسو دواتان مادة كيمستريغا فصل كاللبات دوكسيغا سري مقرر كصوماليا جابتركو وكيميكال رياكشنز كلاسيفيكيشن and mass relationships. جابتر كان runtii waa jabtar aad u baaxad weyn sida buugu uu jabtarka ka muuqataba. jabtarkan wuxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo markaan ka hadlano as introduction وعشركنا واسك introduction إن شاء الله تعالى chemical reactions التفاعلات الكيميائية iyo sida qismaadka loo qaybinayo reactionska. wuxuu kala jabtarkan ka hadlayaa waxa la yiraahdo mass relationships xiriirka ka dhaxeeya buugga form 2 marka laga hadlayo marka chemical reactions and equations waa jabtarkan classifications kama kala yiraahdana chemical reactions ka qaybiisa ayuu ka hadli rabaa ayuu ka hadli doona insha Allah taala. mass relationships kana waa stoichiometric calculations waxa la yiraahdo molki Avogadro's number ki intaba ayuu jabtarkan isugu keenayaa. reactions marka laga hadlayo waxa u horeyn doona waxaan ka hadlayno interactionska walaxda marka laga hadlayo oo waxa soo qaybin form 1ki walaxdu waxay noqotaa chemical change ama physical change. marka walaxdu markuu chemical change ku dhaco waxaan soo sheegnay in walax cusub ay sameysmayso. walaxdaas cusub inay sameysanto waxay u baahan tahay dabarada walaxda isku hayay oo substanceska inay kala jabaan si atamiyo cusub oo kala soocaan loo sameeyo. this waxa way marka waa interactions marka classification reactions kama kala qaybinayo iyadoo loo fiirinayo according to waxa loo fiirinayaa isheeg wax la yiraahdo rearrangementska reorganization ama reorientationska in walaxdan dib isugu soo habeyn karo. chemical reactions waxa loo qaybinayaa combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction. waxa kala soo raaciyaa combustion reactions. chemical reactions waa la qaybiyaa mar laga fiirinayo according to the energy changes marka tamarta la isdhaafsanayna reactions marka waxa loo qaybinaa iyagana waxa la yiraahdo endothermic reaction iyo exothermic reaction. endothermic reaction iyo exothermic reaction waxa kale oo kan ku baran doonaa reactions markay dhacayaan kuwana waxa waa dhinaca bidix jiraan kuwana dhinaca midig jiraan. tusaale ahaan kala daafirino version for example sodium carbonate ko kale ayaa la kuliyay waxa soo baxay sodium bicarbonate raba ayaa la kuliyay waxa soo baxay sodium carbonate plus water plus carbon dioxide. marna kuwa bidix jiro waxa loo yaqaanaa reactants kuwa midig jirna waxa la yiraahdaa products. marka iyadan waxaan baranaynaa walxaha sida loo qoro. waxa kale ku baran doona chemical equation waxa la yiraahdaa waa in la muujiyo symbols iyo calaamado in loo isticmaalo ama loo muujiyo walxayaabaha qaar. for example oo kale hadda marka aan sodium bicarbonate waa kana fiirada sodium carbonate iyo sodium equation ka marka waxa loo qaybay isaga laba qaybood mid waxa la word equation mid waxa la formula equation. marka hadal ahaan u muujiyo sida sodium bicarbonate marka hadalkaas u muujinayo waxa la word equation ama word equation isla eg hadaleed. marka ayagin nestood ama sumadooda aan qoran waxa la formula equation ama symbolic equation ama symbolic equation. waxa kale oo ku baran doona marka inta aan ka baxno sida loo qoro iyo sida loo balance gareynayo equationska. equationska ama chemical equationska ma kala rab in la balance gareeyo waxa la isticmaalaa inspection method ama trial error method. waxa kale oo lagu balance gareeyaa LCM method. waxa kale oo lagu balance gareeyaa algebraic method. waxa lagu balance oxidation method oxidation number method. waxa kale oo lagu balance gareeyaa electron iron electron method. shantaas hab ee waxa lagu balance gareeyo form 2 geena marka waxaynu qaadan doonaa saddex hab ama saddexda hab ugu horeysa inspection iyo LCM iyo algebra. labada soo hartayna secondary-ga gaar ahaan electrochemistry-ga iyo oxidationiska marka secondary-ga laaska saddexaad iyo afraad la joogo ayaa la isticmaalaa in wax lagu balance gareeyo. waxaynu halkan ku qaadan doonaa equationska oo aan u qaybinay word equation iyo formula equation. waxa jiro sumado ama astaamo ama calaamado. calaamadahaas ayagana muhiim waa inaan ogaano
tusaale ahaan oo kale buugga inuu qoraa laga yaabaa buuggan sidiisa insha allahu tacaala aan bilaabi doona calaamadaha waa kuwaana bracket uu gelina mujeedaan waa l haddaa aragto waa liquid s haddaa aragto waa solid g haddaa aragto waa gas calaamadan maxaa leedahay waa delta ama yeldi inta marka joogo waa yeldi ayadoo waa hal dhinac marka u socota marka waa kana s waa solid liquid gas aqueous solution intaan iyaduna waxay noo noqon doontaa cashirkan ama chapterkan intaas basic ah waxaan sheegnay introductionska chemical equationska equation waxaa la dhahaa maxaa la dhahaa marka shayga bidig iyo bidix la eg yihiin ama waxaa la yidhahdo statementiga ama awraarta leh two equal parties waxaa u qeybanay chemical equationska laba qeybood word equation iyo formula equation waxaa kala qaadanay waxaa la yidhahdo sida loo qoro ama reactant subordinate reactant maxaa la dhahaa waa walaxda marka la joogo barbilowga ama dhinaca bidix jirta borratin waxaa leedaha waa walaxda la joogo bardhamaadka ama dhinaca midig jirto iyo waxaa kaloo halkan ku qaadanay equationka uu ahaa formula equation word equation formula equation maxaa lahaa waa marka elementiga magaciisa la sheego oo la qoro word equation waa word equation formula equation waa marka sumad ama sample equation ama formula equation waa marka astaan la sheego waxaa kaloo meeshan ku baranay waxaa la yidhahdo waxyaabaha loo soo gaabiyo hababka lagu balance garay oo 5 hab ah 3 habna aan dhahnay form 2 ku qaadanayna intaas markaa qaadano chemical equations waxa u qeybanay 5 qeybood ama chemical reactionska mar waxaa dhahnay waxaa ka fiirinay markaa 5 dhigin ama 4 oo ah combination decomposition single displacement double displacement according to the reorientation of the habka dib isugu qabsanayaan markaa dhahno according to the energy changes kana waxaa dhahnay waxa u qeybanay exothermic iyo endothermic waxaa lahaa marka reactionska absorb heat energy markay qaataan waxaa leedahay endothermic exon oo out ah marka reactionska ay kul ay sii daayaan kulkaas marka as vapor ha noqdo ama markaas waxaa leedahay exothermic reaction chapterka marka iyo waxaa kale ku jirta qaybta ah mass equationska wuxuu u kala jeedo sida molka loo xisaabinayo compound lagu siinaa compoundska molecular weightkiisa sida loo soo xisaabiyo sida molka loo soo saaro الله مستعان افوغادرس مول iyo mass sida loo soo saar given mass oo molka waxa lagu helaa given mass divided by molar mass iyo atomic weight ka curiyaha uu leeyahay waa isku mid component sida loo soo saaro waxa kale qaadan doon avogadros numberska maxaa la dhahaa percentage-ka ama percentage composition ha noqdo ama percentage gel ha noqdo ama theoretical ha noqdo empirical formula chapterkeena marka intaan ayuu ku dul wareegayaa chapterkan hadda oo muqarrarka dugsiga sare ee fasalka labaadka form 2 ga u naqaano intaan hadda aynu sheegnay ayuu ku dul wareegi doonaa intaas marka buugana akhrinayna wixii kab ah waa kabi doonaa marka isku dayna inaan buugan akhrino insha Allah taala buugan waxaa jira marka buug ka kooban oo hadda inta aan sheegayo oo runtii almost 60 ilaa 80 pages qofkii rabana si online ayuu ku iibsan karaa buuga form 2 ga waxaan iskale macadka kaabe online scientific subject qaybta chemistry ustaad chemical intaas xisadeenu oo introductionska inaan isla socon insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad aad ugu faa'iideysan doontaan hadduu Allah subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh